xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac ayaa ka hadlay shir ay beeshiisu duleedka magaalada Hargeysa kula yeesheen murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. xildhibaan Nacnac oo u warramay Hadwanaag News ayaa sheegay in aanu shirkaas ahayn mid loo dhamaa isla markaana ay xubnaha soo abaabulay lahaayeen dana gaar ah. wuxuuna yidhi shirka waxaan markaa dadku wax horo afartii meel isku timaadaaba haddii beel sheegtaan horta waa ceeb لكن ده الشركة هنا قبسان كوحيرو اسكتيمي أو قف عسومان ده الحمد لله رب العالمين لكن كوحيرو آن من الكتير سخو وان هير كنا متلين وحبان آن لقى أخونين لنا أخونين ومقدر كدونين برتان وحب معين حبام هاشين يعد كلابا سامين كويل المشتو هاشين وامد سومالين لما مده وما أنت أوسو هيلان أو أوسو شيء إني maanta xisbiga wadani soo saarto oo si xor oo xalaal u soo saarto marka maxaa afanino meel isku tagay waxba naga qaadi maayaan. xildhibaan Nacnac hadalkiisa sii watay si toos ah ula hadlay murashax Muuse Biixi Cabdi wasiir qabo iyo xildhibaankii Jaande. waxaa leeyahay Muusow way ku yaqaaneen waxba ku habsaamin in cudna ka ilmaysid iyo kii qayrkood cudna ka ilmaysid waxba ku habsaamin in ka durug baan leeno iska xaba daadiga ku jirta laakiin waxaan ku leeyahay hadalkayga meel ku qoro waxa la waxaad ka helaysaa iyo ka qayrkood mid ma jirto bulshadu de horta waa la soo doortay oo alxamdulillah rabbil caalamiin ummadanu shaqeeyay ku faani maayo maanta in waxa san qabtay laakiin ummadu dadku dibadii gudub waa la yaqaan nin walba wuxuu qabtay waxaan bulshada u sheegayaa anagu dee haddii la soo doortay wixii waajibkaygu ahaa waan qabtay laakiin kuwii shalay lahaa waana la soo doortay uu kajaana ka mid yahay bal haddii xaafadda isagoo lugeynaya wuxuu qabtay iska day isagoo lugeynaya haddii lagu arko waxbuu qabtay hadda isagoo lugeynayo wadaadkii kale marba meel ka soo boodboodi jiray odhan jiray heyg baan madaxweynaha geenayaana waxba la hadli maayo isaga in ashahri tagi qudaamalbey taariikhdu way isqortaa marka wixii nin walba waddanka uu soo qabtay iyo madaxdiisu soo qabtay waa la ogyahay waana qof waliba waa ka dheregsan yahay maanta ololahan la isku baran maayo almiidaan waasac ayaa leeyahay waxa nin walba keeno hal arko shirkaasi waxa ka qayb galoo kale suldaankii beeshaada suldaan barre bal hadda suldaan barre isaga maxay soo jeedin lid waxaan soo jeedinay dee suldaan barre salaadiinta dee suldaan dhexdhexaad noqo oo ilaa kuwa haashin iyo gobolka dhammaad suldaan u tahay waxaan jecelahay inuu suldaan dhexaa noqdo siisii oo aan la waalin oo aan rag aan sumcadiis ku yaarin waa suldaan qiimo nagu leh waa suldaan aan aad u jecelahay marka waxaan leenahay adeer labadeedaba suldaan ma noqotay ama wadani ama ucud ama kulmiye whatever you are ku suldaan ma noqotay laakiin qof qori suldaan ma tiid. dhinaca kale xildhibaan Nacnac ayaa ka jawaabay hadallo naxli badan xambaarsanaa oo ka soo yeedhay boqor Buurmadow wuxuuna sheegay in aan waqtigan qaranku qaadi karin qabyaalad lagu kala saaro shacabka wuxuuna yidhi arrinka Buurmadowna haddaan nahay beesha in shalay halkaa qabatay iyo beesha araba oo dhanba baaq baan ku soo saarnaa ma ogolin fitnada wada ma ogolin weligiiba fidmo wadi waa kii madaxweyne Siilay ku xidhay ولها حفايد بعد حلنتي وعاي واتلقوا حري هذا هو مركو لح بلود هالستي مركو هو ينكاسو كله هنلو يان ومدو حملين حلاقة قبته مدح نقميده سومالين وحن قاصنية مدح نقميده حكوتين نبت جليده مدح نقميده وحب معنيس وحب نبت جليو إنه هالك كفرنا نينكا بلاد أبو عيه شركة أبو عيه حلاقة صاروا وحدوني إنه كيلو أنت هل يسيس أنتو حمر تقول له سومالين أنا سبابيو هذا كيون سبابي إلى هنا قبوا الله وحيسر وده كاسو كلا. مهد حسن حسين مهد قله شبكة عالم بقى هروناق مقالة هرقيسة.